kan keliya ma aha qof kale oo streamer muran dhalinaya. Kani waa nin ka dhigtay hub qowmiyadda, diinta iyo aqoonsiga, dhammaantoodna lacag darteed. Sheekadiisu keliya ma aha mid ku saabsan kaftanka xun, waa mid ku saabsan khiyaano. Waa maxay sababta internetku u rumaystay isaga? Iyo sababta aan loo rumaysan lahayn? Dhammaadka muuqaalkan waxaad fahmi doontaa sida nin ugu adeegsaday aqoonsi been ah in uu ixtiraam darro ku sameeyo dhaqanno, uu marin habaabiyo sheekooyin, isla markaana uu lacag ku kasbado nacayb. Iyo tan ugu muhiimsan, sababta ay tani keliya u ahayn dhibkiisa, balse ay inoo tahay mid inaga oo dhan ah. Baadhitaankan waxaa laga soo xiganayaa warbixinnadii xabsigiisa oo xaqiiqada ku salaysan, muuqaallo laga soo jaray tabintiisa tooska ah, jawaabo online ah, iyo isaga laftiisa hadalladiisa oo kamaraduhu qabteen. Haddii aad raadinayso caddayn, waannu haynaa. Laakiin ka hor intaanan shaacin qofka runta ah ee uu yahay, aan eegno qofka uu sheegtay in uu yahay. Online ahaan waxaa loo yaqaan Johny Somali, laakiin sharci ahaan magaciisa runta ah waa Ramsey Khalid Ismail oo ku dhashay Arizona sanadkii 2000. Bilowgii wuxuu soo gudbiyo ee hore waxay bixinayeen sawir isaga oo ah mid socdaala, ku nool dibadda xorriyad buuxda, diidan qawaaniinta bulshada, isla markaana iska caabinaya filashooyinka. Si kastaba ha ahaatee, kadib markii ay soo baxeen sheegashooyin iskhilaafsan oo ku saabsan qowmiyaddiisa iyo hadallo soo noqnoqday oo u muuqday kuwa buunbuunin ah ama ku dhisan fikrado caajis ah oo ku saabsan dhaqanka Soomaalida, xaqiiqadii runta ahayd sheekadiisa ayaa dibadda timid. Ma jirin af Soomaali, ma jirin aqoon dhaqan dhab ah oo isagu leeyahay, ma jirin wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya isaga iyo bulshooyinka Soomaaliyeed. Waxaa soo noqnoqday caado uu ku jeesjeeso Islaamka ama ku muujiyo aragtiyo siyaasadeed oo aan caadi ahayn, xataa aflagaado ku ah gudaha jaaliyadaha Soomaaliyeed. Wax aan iswaafaqsanayn ayaa jiray. Ma ahayn aqoonsigiisii runta ahayd. Waxa uu iska dhigayay qof aanu ahayn. Haddaba Ramsey waa kuma dhab ahaantii? Jawaabtaas waa imaanaysaa. Gudbinta tabinta tooska ah, streaming, waa degdeg mid loo soo gudbiyo. Tabin toos ah ayaad samaynaysaa, waxaanad lacagta ku helaysaa isla tabin toos ah. Waa nidaam inta badan abaalmariya xumaanta iyo tabanaha, gaar ahaan meelaha tartanka adag ka jiro, halkaas oo streamersku ay dareemaan cadaadis ay si joogto ah u kiciyaan falalkooda si ay uga dhex muuqdaan. Ramsey waxa uu tan ka dhigtay shaqo wakhti buuxda ah. Laga bilaabo Jabaan ilaa Kuuriya, waxa uu ku dulminayay shisheeyaha, aflagaadeeyey dhibanayaasha dagaalka, baahiyey mawduucyo xumaan ah oo sun ah, isaga oo u beddelay cadhadii dadweynaha layn qabow oo lacag adag wadata. Khubaradu waxay tan ugu yeedhaan reactive streaming, dabin casri ah oo dopamine ah, halkaas oo trollsku ay ku taajiraan xumaanta ay sii kordhiyanaan. Ramsey keligii ma ahayn. qaybta xigta waxa aynu eegi doonaa sida kaftanka xun ee ka dhanka ah dhaqaalaha uu uga dhashay nooc caalami ah oo sumcad online ah, iyada oo xataa leh cawaaqib halis badan. Trolling tourism waa raadinta sumcad oo si caalami ah loo qaaday ama maray. Streamerska tabinta tooska ah sameeya waxay u safraan waddamada leh heerar bulsho oo adag iyo dhaqamo aan isqabadka lahayn, kadibna waxay riixaan xuduud kasta oo ay heli karaan. Tusaale ahaan ka soo qaad Vitaly Zdorofetsky. Laga bilaabo Abriil 2025, mawduucyada baraanka ah ee uu sameeyo dartood waxa uu galay gacanta dowladda Philippines, isaga oo wajahaya eedeymo dembiyeed oo ah cadho, xatooyo, iyo dhibaatayn dadweyne. Dispatch, I'm a homosexual. Dhammaan kuwaas oo toos looga baahiyey kick-streamkiisa ee Metro Manila. Hadda waxa uu wajahayaa ilaa 18 bilood oo xabsi ah, iyadoo aysan Ruushka ama Maraykanka diyaar u ahayn in lagu celiyo labadooduba. Haddana waxaa jira Poseidon. Juun 2023, isaga iyo dhowr kale ayaa lagu xidhay Bangkok, Thailand, intii lagu guda jiray kick livestream uu ku sameeyey saaxiibtiis qoobka ciyaar gudaha maqaayad, ficil ay shaqaalaha hoteelku u arkeen mid si weyn u ixtiraam darro ah. And I would like all of you to go to the police station now. If you are doing something like this, it's unrespectful for Thai culture. Taas oo dhaqanka Ramsey si buuxda ayuu ugu habboon yahay qaababkan walaaca leh. Koonfurta Kuuriya waxa uu meel xusuus ah oo loogu talagalay dhibanayaasha dagaalka ku ceebeeyey.
Jabaan waxa uu ku jeesjeesay qaraxyadii atoomiga ee Hiroshima. Xadgudub kasta wuxuu u noqday mid shidaal u ah kanaalkiisa. Falcelin kasta mushahar. Dhammaan falalkan waa kuwa canaan iyagu iskugu filan. Laakiin waxa kiiskan ka dhigaya mid ka duwan ma aha keliya dhaqanka, waa isku dayga in lagu qariyo wax ka sii xun, aqoonsi been ah, wejiga ammaanada ah, lana hubaysan. Waxa xiga ma aha keliya xumaan, waa khiyaano. Ramsey waxa uu sheegtay mararka qaar in uu Soomaali yahay. My mother's from Somalia, Mogadishu. Okay. Ama ugu yaraan qayb ahaan. Laakiin sheegashadan si dhaqso ah ayay u burburtay marka aad baadho buunbuuninta asalkiisa boombalada ah. Marka dib u eegto sheekadiisa, ilmo la moodo in uu askari ahaan jiray ama budhcad badeed Soomaaliyeed. Xaqiiqada xitaa uma baahnid inaad si fog u baadho, waayo isagaa is-xaqiijinaya laftiisa. I never denied that. I never denied that I'm half Ethiopian or Yemen. Si kastaba ha ahaatee, cidna uma muuqan inay danaynayso. Some people are born to be assholes, you know what I mean? I'm Jewish. I'm half Ethiopian Jewish. To be the fucking asshole. Well, I'm telling you this. I'm half Ethiopian Jewish. You from? Ethiopia. But I'm born in America. Waxaa laga yaabaa in sababtu tahay haddii aadan ka tirsanayn bulshada Soomaaliyeed, si fudud ayaad iskaga indho tiri kartaa. Laakiin taasi waa sababta saxda ah ee aad u danayn lahayd. Johnny Somali is technically, he's not Somali. Johnny Somali is not Somali, and I need everyone with a phone to know that. The guy is not Somali. He has nothing to do with Somalis. Ramsey waa natiijada ka dhalatay dhibaato weyn, gaar ahaan Maraykanka, halkaas oo uu ku dhashay. Waxa uu doortay aqoonsiga Soomaaliyeed ma aha sababtoo ah ma aha inuu yahay, balse sababtoo ah waa mid ku habboon. Sababtoo ah wuxuu ogaa in ku filan been abuuradkaas. Sababta oo ah wuu fahmay xiisadda taariikhiga ah ee u dhexaysa Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo sida looga ka faa'iidaysto kala qaybsanaantaas. Inta ugu badan wuu ogaa in Soomaalida ay yihiin madow, Muslimiin, si qaldan u fahmay reer galbeedka. Waxay horay u wajahayeen fikrado gaar ah oo ku saabsan Maraykanka. Iyo isagoo ku isticmaalaya magacooda uu u dhaqmo isagu sidii qof xun, wuxuu hubiyey in nacaybku uusan ku dhicin isaga ama bulshooyinka uu dhab ahaantii ka soo jeedo, laakiin ay ku dhacdo iyaga. Laakiin sheekadan waxay ka qoto dheer tahay keliya marin habaabin, waxayna nagu soo wajahaysaa arrinka weyn. Ramsey ma aha mid khiyaano ku jira. Wuxuu si sax ah u yaqaan waxa uu samaynayo. Si ula kac ah ayuu u doortay aqoonsi been ah. Wuxuu beegsanayay bulshooyin edeb leh oo ixtiraam leh oo dibadda ku nool, isagoo aaminsan inaysan jiri doonin wax cawaaqib dhab ah oo ka dhalan kartaa. Wuxuu aflagaadeeyey, silciyey, oo ka faa'iidaystay dadka qalaad, dhammaan dano gaar ah ayuu u leeyahay darteed. Si kastaba ha ahaatee, eedu ma aha in ay ku dhacdo bulshooyinka uu ka yimid, waa in ay ku dhacdaa isaga keliya. Waalidiintiisu sida laga soo xigtay waa dad wanaagsan oo iska fogeeyey ficiladiisa. People think they want to get a reaction. They just say, yeah, I hope you never get kids because we don't want another you. It's legit what his dad said to him. He gets really angry about that. So his parents really don't like him. Iyada oo xadhigiisii ugu dambeeyey boqortooyadiisii dijitaalka ah oo burburaysa la arkayo, iyo suurtogalnimada dhabta ah ee uu sannado badan xabsiga ku qaadan karo dibadeed, tani waxay u muuqataa dhammaadkiisa ugu dambeeya. Iyo rajada dhammaadkiisa ku saabsan isticmaalka magaca Soomaaliyeed si khaldan. Laakiin sheekadan marnaba ma ahayn keliya mid ku saabsan Soomaalida, ama Itoobiyaanka, ama Yaman, ama Yuhuud, mana noqon karto marmarsiyo lagu eedeeyo dhaqanka. Bulshooyinkan waxay wadaagaan qiyam, taariikho, iyo awood, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin aqoonsiyo gaar ah oo mudan in loo dabaaldego, laakiin laysku hubayn. Waxa aan hadda u baahanahay ma aha kala qaybsanaan, laakiin midnimo, sababtoo ah Ramsey ma matalo Soomaalida, ma matalo Itoobiyaanka, ma matalo Yaman, dhab ahaantii ma matalo xitaa Maraykanka. Waxa uu matalaa waa hoos u dhaca riyada Maraykanka. Saxafi David Leonhardt buuggiisa 1320 wuxuu raad raacay hoos u dhaca riyadaas iyada oo loo marayo isbeddel qoto dheer oo ku yimid dhaqaalaha Maraykanka. Isbeddel laga soo qaaday hanti-wadaagga dimuqraadiga ah, kaas oo ka caawiyey dhismaha dabaqadda dhexe, una beddelay hab qabow, hab guulaystaha qaado dhammaan ah oo ku mashquulsan dhaqan la'aan iyo dan shakhsiyeed oo lagu soo koobay weedha. Hungurigu waa wanaagsan yahay. Riyada Maraykanka hore waxay ku saabsanayd dhisidda wax dhab ah, iyada oo loo marayo shaqo adag, bulsho, iyo ixtiraam. Laakiin hadda waxay noqotay mid qaloocan.
waxaa ka faa'iidaystay nidaam halkaas oo anshax hoose iyo faa'iido sare ay gacmaha isdareen. Ramsey ma aha keliya troll. wuxuu yahay sheeko digniin ah, natiijada jiil uu ku koriyey algorithms jecel oo la dhacsan sacabka oo ku shiidaalkooduna yahay beenta. laakiin anagu waa inaan ka wanaagsanaano. ma sii wadi karno abaalmarinta waxyaalaha xunxun. Ramsey ma aha mid waalan. I don't give a fuck. I have no morals. I'm a fucking sociopath. You're not a sociopath. You're a dweeb. You're an embarrassing little weirdo. wuxuu si sax ah u yaqaan waxa uu samaynayo wuxuuna fahmayaa cawaaqibka. laakiin waxa uu u noqday addoon doolarka ka tarjumaya dhaqankii kor uu ku soo barbaaray. ma aha keliya troll. wuxuu yahay muraayad. waxa uu ka tarjumayo ma aha keliya yaab. waa murugo. nabsigu mar walba ma aha ciqaabta ugu habboon. mar walbana ma aha mid soo degdega. laakiin mararka qaar wuu ku qabanayaa. markan wuxuu wajahaa cawaaqibta ma aha isagoo johni Soomaali ah, laakiin sidii Ramsey Khalid Ismail. ma jiro maaskaro. ma jiro shakhsiyad. keliya nin keligiis weliba maxkamad ajnabi ah. ugu dambayn lala xisaabtamayo. haddii aad rabto inaad taageerto codadka dhabta ah ee ka imaanaya bulshooyinkan, eeg muuqaalada gaagaaban ee abuurayaasha Soomaaliyeed oo baadh xiriirada hoose ee fanaaniinta, macallimiinta, iyo streamerska Itoobiya iyo Yemen ee qabanaya shaqooyin cajiib ah. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. ha ilaawin inaad like, comment iyo share garayso oo sii sug muuqaalada kale ee sidan oo kale ah.